سؤال لبعض ربينا إذا ويديه وحيت هاي مركات هاي جبر أمويل باريستا وما عقبتها على كلنتي بالشدة هذا جبرت هاي عقبتها على كلنتي محي هاي أديكو جبر أسيو كل كرتا هذا ويلت هاي مرحلة دي الشقة دي هراء كتيم دي الشقة أنا أوصل دي واحد تكوي قانين iyo markaad muqdisho ka shaqeynaysa caqabadihii iyo marxaladii aad la kulantay intaad ka shaqeynaysay maxay ahaayeen horta caqabada ugu horeysay waxay ahayd xirfadan waqti baranay tan shakhsi ahaan ay ugu ahayd horta dib badan ka soo maray waa si sahlan ma ku soo baranin maanta kifaax weyn u soo maray xirfada intaas dhan horta daageys u dhigno dib yaraa jiro oo ku saabsan owner maanta shaqada waa la kala leeyahay waxa arkaysaa maanta baarista oo meel ka shaqeeyo hal week ka bacda adina meel kala ku arkay laba week oo kaadinaya adina meesha uu ka soo tagay meel agtiisa oo ah adina uu tagay intaas waxa keenay soorta shaqada waa la kala leeyahay maanta owner ajiro manager ajiro supervisor ajiro ka bacdi baaristaha ownerka intaas dhan inuu soo dhaafaa toos shaqaalaha xukun uu la galaa ma xuma horta intaadan business galin baarista adala dhaho waajib owner manager supervisor inay khibrad u leeyihiin xirfadan ay ka business ahaan ay u galeen bas caqabada aniga hortaagan maanta qof walba maanta oo lacag haysto mashruuc uu furana khibrad uma laha shaqadii bas asiga maanta ay ka sii sacaawo uu ku fikiraa bari shuruuciyadaas uu ku fulinaa shaqaalaha joogan maanta nidaam jiro xuquuq jiro baaristaha uu leeyahay iyo xuquuq ownerka iyo managerka iyo supervisorka meesha joogo fa taas horta caqabad weyn ay tahay waxaan si jeclaa lahaa taa inaa oo maanta heerka ma joogin anaka waqti yara ku gaarnay inaa magaalada maanta coffee shop meel walba uu ku furnaado meel lagu baashaalo meel shir lagu qabsan karo inaa lahaana horta waqti yara lagu gaaray alxamdulillah horumarkan saa uga gaarnay ana urajeenaa insha Allah inaa maanta qof walba shaqadiisa iyo xirfadda uu ku jiro xuduudiyadiisa inay ogaadaan taas caqabad ka weyn horta male ani ahaanteedii ra'yigayga saasa asri lahaay